Aku kabadowga abaarta maareynta kheyraadka dabiiciga waa bato muhiim ah guud ahaan shacabweynaha reer Koonfur Galbeed walibana wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya geedka magaalada Baydhabo tababar aan ka furtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka magaalada Baydhabo tababarkan oo soo dareeri doona muddo 5 maalin ah oo ka barado doona maareynta kheyraadka dabiiciga dalka walibana furitaanka tababarkan wuxuu qayb galay gudoomiyaha degmada Baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo wasiirka bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isaaqfana agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yaan korentii faahfaahin ku bi waryaabo la ka barado doona muddo 5 maalin oo soo dareer tababarka sida markaasayti dadka lambar faday aqoonta la xiriirta maareynta kheyraadka dabiiciga oo runtii noo kaalmayaas hay'adda ADRA xafiiska Baydhabo wali runtii barnaamijkun faday intii faahfaahin yarsiin ku sii way wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya waajibaadka kumada oo runtii yabeek sidaas kuma taaytay iyadoo la fiiriyo in wala ku qabada wadankan kheyraadku silay sida markaasay lantay ilaa waan la maaray lahay kheyraadka marka dhowr noocyaan iska jara wali la tababar doonaha waan runtii ha ku qayb galeen ilaa 7 wasaaradood oo kuma deeyin wasaaradda biyo wasaaradda beero wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda macdanta iyo petroleumka caafimaadka ilaa iyo marka ururada bulshada rayidka wali kale kumada Mayla Rais Women Groupka gaar ahaan sasoo kale Mayla Rais shirkun wali kale nool roogaha dad markaasay runtii agaasimaha guud agaasinka deegaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa inta ku qayb galahayti laakiin Mayla Rais lanaha wakiiladi sasoo kale Mayla Rais wali ujeedada tababarku intiin dareer muddo 5 maalmood hal maalmood runtii dadka la baradoon qaab practical intiyo ha aragan waxyaabaha markaasayti iyo geedka iyo muddooyinkan bayoon dhegeysan doonaan Mayla Rais oo theory and dhegeysan doonaan in practical han aragan marka ujeedkan ka muhiimsan iyo Mayla Rais wala runtii farxadneen aha in wasaaradii lanka tirgaleenaha xaadiran gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Xasan Maalin Axmed Bikola oo madala furitaanka tababarku hadalaya wuxuu ku qayb galayaasha kala dardaarmay intii ku faa'iideysan muddo tababarku uu soo dareera wala kale buu baasti bariis wala soo wal jarba marka uu wadaaba miskiin baas beerlaan beerale in dhulkaan dhul beeraday yaani ma masjidadaas in la tabala taab sheelka dadaala kordhintii la dadaala yaani ma tala dakhliga la dadaala waa muhiim way yaani geeka dhulka kiikan dhulka faano karo يعني لنقول بالصومالي كانوا تستيد كان يعني كفانو كرتو دول بيردا قبطه بي مواشنيدي ما لا اسمها مسكين بهاس سدبلود بعد ما هي عارم وبيروا لكن كتحضر ولا فدا ابار هدي كويته ان دولده مقاسمه سوبسه مسجد كيدد wasiirka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Ali Isaaq Umar يسر رسمي عن فرد توبركم ويبنوسوا كهذا مهمة توبركم سئلي شعب كرر كونفور قلبدا ما ملك أمام ما ملك إن خيرات كدبيعة إلهي نسي إن كاسي أو ما يلهاي توبر كاس نسوا دون مدة شمبرة إن توبر كاس نكو فائدة يصير دون تان لما تين أنت هذا الشيء أو ميلون فديه ويبغى توبركن توبر إيد مهم لينك أو توبر عصبه ويبواه إن جيك ني عصب إني ما يلغاي إنه كهذا النقاب كل ما ملفظي خيرات كدبيعة إلهي نسي رنتي قدوميها إيدن كده دايرة دي أرنتي هذا عنين ولا يرسي دبك هادي إلهي إر المدير اللي ما يلغاي إن معمول ده إن خيرات كدبيعة والكست هرت ويبقى جراه هو بمعمول لعنا كذا ويبقى نكذا إن بعين أما ما يلغاي سدي الفضاي من نكذا من صعود القرآن runtii shay kasta ama wal kasta oo la sameeyo way baahantaa inay meel raay maamul lahaata inay hoggaan lahaata inay meel raay
qaab mas'uudaas lahaad haddii liin waan way banagdaas iska dhax dhumaas shaqadii dhan isku dhumaas walaaqba ko wada dhumayaan Faisal Dhaye Hussein, Radio Television Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.